بالله من الشيطان الرجيم. sharciga shirkadaha waxaa la ansixiyey 2019kii 26 bishii 12 2019 sanadaasaa la ansixiyey sida uu qabo qodobka 87 faqrada koowaad iyo faqrada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ahaa qodobka 9aad xarafka f ee dastuurka kumeelgaarka sida uu qabo sharciga shirkaduhu waa khasab in loo tixgeliyo lana raaco markii shirkad la aasaasayo. Sideedana shirkad waxay timaadaa ama sharciyan la dhahaa ganacsigan waa shirkad markii laga diiwaangeliyo wasaaradda ganacsiga. Sidaas haddaan la diiwaangelin oo aan loo diiwaangelin shirkad ahaan shirkad ma noqonayo. sida qodobka 2, 3, 4, 5 ay qeexayaan qeexitaanada iyo aasaaska shirkadaha kul ayaga qeexaya. marka qodobka labaad baa eray bixinta qeexaya waa maxay shirkad, waa maxay qodobka koowaad ee sharciguna wuxuu qeexayaa sharcigan inuu yahay nidaamyaha qaabka howlaha shirkadaha iyo ganacsiga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Soomaaliya inuu nidaamiyo diiwaangelinta shirkadaha iyo howlahooda. Qodobka koowaad baa qeexaya. qodobka labaadna waa eray bixinta sharcigan ku jira iyo macnayaasha sida maareeye, saamile, waajib, xafiis guud, qof, dhageysi, sharciga ereyada ku jira iyo isticmaalkooda. qodobka saddexaadna wuxuu ka hadlayaa magaca sharcigan oo ah magaca sharciga shirkadaha ka ganacsada dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weye. magacaasaa loo bixiyey sharciga. marka shakhsiyadda qaanuuniga ee shirkadaha looga hadlayaa qodobka 6aad. qodobka 4aadna waxaa looga hadlayaa fasiraadda sharciga. hadda waa dhaafay sharcigan waxa loo fasiranayaa baa la isu waafaqsan xeerka madaniga Soomaaliyeed. sharciga madaniga Soomaaliyeed xeerka madaniga Soomaaliyeed baa qeexaya sharcigan. isagaa lagu turjumayaa wixii isaga interpretationkiisa loo aadayaa. awoodaha shirkadaha iyo howlahoodana qodobka 5aad baa sheegaya ujeedada shirkad ganacsi. shirkad ganacsi waxay noqon kartaa baa leeyahay ama lagu aasaasi karaa marka shakhs ama shakhsiyaad ay isku darsadaan hanti sida waafaqsan sharciga, waxaana lagu magacaabayaa saamiley kuna howlan ganacsi faa'iido doon ah si waafaqsan shuruucda dalka. waxna aan u dhimayn baa leeyahay asluubta iyo anshaxa iyo dhaqanka iyo diinta iyo dalka. haddii intaa ay shirkadu wax ka duwan ay ka shaqaynayso waxa weeye waa nullified weye, waxba kama jiraan. shakhsiyadda qaanuuniga ee shirkadaha waxaa la yiri shirkadaas waxay noqonaysaa oo yeelanaysaa markii la diiwaangeliyo. shirkad kasta waxay yeelanaysaa shakhsiyad qaanuuni ah goorta la diiwaangeliyo. maxkamadda awoodda u leh taa oo noqonaysaa la yiri halka ay xarunta dhexe ee headquarterkeedu shirkadda ku yaal. shirkadda markii la diiwaangeliyo shirkaddu waxay yeelanaysaa dhammaan xuquuqaha, waajibaadka iyo tasarrufka sharcigu siinayo. marka inay wax yeelato, inay hanti yeelato. qodobka 7aadna wuxuu ka hadlayaa noocyada shirkadaha aan hore u sharaxnay. shirkad gaar loo leeyahay waa shakhsi ama qoys ama saaxiibo kooban ay leeyihiin, waa shirkad sahlan baa leeyahay. shirkad mas'uuliyaddeedu xadidan tahayna waxa waaye limited liability, waa shirkad daynteedu u soo gudbaysa saamileyda. haddii shirkadaas ay khasaarto ama kacdo waxay ku egtahay kambaniga hantidiisa. shirkad aan mas'uuliyaddeeda xadidnayn waa shirkad daynteedu u soo gudbaysa saamileyda. haddii shirkadan la dhiso oo wax dhacaan ama khasaare yimaado ama dayn lagu yeesho, dayntaa waxay u gudbaysaa dadkii hantida lahaa, waxaana laga goynayaa waxay haystaan akoomadooda loo dhacaya. shirkad dadweynena waa public, waxa waaye waa shirkad saamiley, waa shirkad raasumeelkeeda u qaybsan yahay saamiyo lehna madax banaani hantiyeed. xubnaha shirkaduna ay ka badan yihiin 50 saamile. haddiiba shirkadaada xubnaha dadka ka tirsan ay 50 dhaafaan, it should be public. sifooyinka marka qodobka 8aad qeexayo oo shirkad gaar ah iyo shirkad dadweyne qodobkaas qeexaya. waxay leedahay sifooyin dhinaca xuquuqda saamilaha waa xadidan yahay.
hadduu wareejiyo si cad ama si kale u wareejiyo saamigiisa tirada saamileyda shirkadda oo ku xadidan ilaa 50 saamile waxaa ka reeban in la faafiyo iibsiga saamigaas oo shirkadaha gaarka loo leeyahay haddii shirkad gaar ah ay gaarto baa 50 xubnood waxay si toos ah u noqonaysaa shirkad dadweyne shirkadda dadweyne waxay leedahay marka sifooyinkan saamileydu waxay wareejin karaan saamiyadooda oo public in xeerkeedu diidan yahay oo si gaar ah loo qoro mahane dadweynaha waa loo fasaxayaa gadashada saamiyada iyo amahda shirkadda in xeerkeedu xadidan yahay oo xubnaha 7 xubnood uu ku waxaya mahane iyada xad looma yeelayo shahaadada lagu aasaasay ay qeexayso in ay tahay shirkad dadweyne waa public waxa waaye certificate-keedu ku cad yahay adeegsashada marka awoodda qaldan waxa waaye qodobka 9aad maamulayaasha shirkadda arrintaas gaar u tahay haddii ay adeegsadaan awood ka baxsan midii shirkaddu u idmatay waxay si wada jir ah ama shakhsi ahba mas'uul uga noqonayaan dhibka iyo xuquuqaha ka dhasha falkaas agaasimayaasha kale baa arrintaas ay gaar u tahay iyo madaxda shaqaalaha hoose shaqo kuma leh xiriirada ganacsi ee dibadda waxaa la yiri sharcigan wuxuu u ogol yahay shirkadda marka dalka ama ay laga diiwaan geliyo si waafaqsan sharcigan inay ka ganacsan karaan dalka gudihiisa dibaddiisa waa exportiga iyo importiga qodobka 10aad ba arrintaas qodobka 11aadna wuxuu ka hadlayaa mas'uuliyadda saamileyda haddii shirkad dadweyne ay gudan weydo baa waajibkeeda balanqaad dhaqaale oo ay dhowri weyday baa heshiisyada iyo contractiska ay gasho nidaamka sharcigana wuxuu farayaa ama nidaamka sharcigani farayo looma raacan karaa saamileyda shirkadda balse hantida saamileyda shirkadda gaarka ah waxay damaanad u tahay waajibaadka shirkadda lacagta shirkadda lagu bay ku eg tahay marka bank statementiga iyo waxa shaqeynaya awoodda shirkadda wax ka badan inaysan qaadan karin waxa didan tahay qodobka marka aasaasidda promotionka in shirkadda la establishmentigeeda shirkadda waxa asaasi karaa leeyahay qof ama ka badan laakiin dadoodu inay 18 sano ay ka weyn tahay shirkad ama shirkado ama shakhsiyaad caadi ah oo isku darsaday hanti shareholders oo faa'iido ganacsi doonaya shuruucda dalkan aan ka hor imaanin simple intaas weey qodobka 12aad wuxuu qeexayaa marka 13 wuxuu qeexayaa qoraalka aasaasidda ugu muhiimsan oo sharciganba la doonayo in uu maaragtay loo fiiriyo magaca shirkadda waa in laga fikiraa waa in qorshe laga yeeshaa astaanta shirkadda waa in macno loo yeelaa oo aysan wax kasta iska noqon ujeedooyinka shirkadda waa in si sharciyan ah loo fariisiyaa ama istaraatiijiga balaankeeda strategic balaankeeda dhammaan wax kastoo shirkaddu ka shaqeynayso businesskeeda ujeedooyinkeeda raasamaalka shirkadda iyo sida loo kala leeyahay waa in saamiyada la qeexa nooca ganacsi ee shirkaddu ay ku howlanaan doonto ma kalluumaysiba ma beeraha ma industrial ba ma communication ba maxay ka shaqeyn doontaa shirkaddani ma service ba ma goods ba ma import and export of livestock ba magacyada oo saddexan iyo ciwaanada lagala xiriiri karo asaasayaasha shirkadda waa muhiim magacyada golaha hogaaminta board of directors ee shirkadda iyo shakhsiyaadka mas'uulka ka noqonaya maamulka shirkadda iyo ciwaanadooda waa khasab wax kasta oo lagama maarmaan ah in shirkadda lagu asaaso waxa weeye waa in qoraalka lagu cadeeyaa dhammaan dadku sida ay wax u kala leeyihiin qodobka 14aadna waxa weeye dhaqangalka diiwaangelinta qoraalka asaaska shirkaddu waxay asaasantaa marka qoraalkeeda asaaska iyo diiwaangelinta uu aqbalo diiwaan hayaha wasaaradda ganacsiga una diiwaangeliyo asaasayaashuna way codsan karaan dib u dhigid magacooda loo haynaya dukumentiyadooda loo haynaya cid kale magacaas ma qaadan karto isla markaana la hubiyo in magaca shirkadda uusan hore u jirin haddii kale copyright-ka shirkadda iyo wixii oo dhan businesskiiba waxaa ka imanaya khalad qodobka 15aad wuxuu ka hadlayaa wax ka beddelka qoraalka asaasidda wax ka beddelka magaca shirkadda qoraalka asaaska iyo waxa oo dhan haddii qalad soo baxo waa loo codeynayaa saamileyda $3 $2 hadday isku raacaan loona gudbiyo wax ka beddelka diiwaan hayaha si uu u diiwaan geliyo waa la aqbalayaa simple markaas shirkadda waxay ku kala adkaanaysaa waa vote
intaas inoo tahay. Maanta intaasaan ka hadli doonaa haddii alla idmo. Maalinta xigta waxaan ka hadli doonaa qayb kale oo sharciga dalka ah ee shirkadaha. Kadib baan u gelaynaa Afrika iyo caalamka intiisa kale haddii alla idmo.